waa fayras ku dhex faafay bulshadeenna, waa dulin aan laga fikirin boogtiisa, waa isxaqirid, isdulmin iyo sharciga islaamka oo la jebiyo, waa in la leexleexiyo dariiqii alle u dhigay oo ahaa in loogu dhaqmo. waxaa ku adeegta qof aan garanayn cidda uu yahay, aaminsanayna inuu leeyahay awoodo dabiici ah oo uu ku gaadhi karo waxa uu rabo. dabcan waxaan ka hadlaynaa waa qabyaaladda oo aynu muuqaalkeennan ku faaqidi doonno. magacaygu waa Jimcaale Daahir, halkanna waa Salgaadh Media. inta aynaan u gelin qabyaaladda, waxaa muhiima inaan isla soo fahanno isha ay ka soo dab qaadato qabyaaladdu oo ah qabiilka. qabiil waa koox ka mid ah bulshada, kuwaas oo wadaaga abtirsiin kooban, waxayna si kala qaybsamaan jilibbo qoysas. ugu dambaynna waxaa kala beedha oo jilibbo iyo beelo noqda laba walaal ah. dabcan ereyga beel waxa uu kala baxaa laba micnood. mar ereyga beel waxaa loo isticmaalaa marka ay meel wada degan yihiin qabiilo kala duwan, islamarkaasna wadaaga difaaca deegaanka ay degan yihiin, waraabka, guuska iyo xaalad walba u baahan in wadajir loo wajaho. mar kale ereyga beel waxaa loo adeegsadaa jilib ka tirsan qabiilka, siba jilibyada hoose. mar kastoo tirada abtirsiinta qoysku gaadho 2-3 awow, waxay isku beddeshaa jilib yar oo hoose. dadka walaalaha ay markay guursadaan ee carruur sii dhalaan, carruurtooda waxay isku noqdaan ilmaadeer, ilmaadeerka labaad, ilmaadeerka saddexaad xagga aabaha. kadib wixii intaas ka dambeeya waxay isku beddeshaa tol, halkaas oo haddana qabiilkii kor uga unkamo oo uu marka hore noqdo jilib yar oo hoose, deedna qolo iyo qabiil. badanaa isxidhiidhinta qaraabanimo iyo iscaawintu waxay isku taagtaa ilmaadeerka saddexaad. wixii intaas ka dambeeya waxaa la ysku noqdaa untol. taas macnaheedu waxaa yahay waxaa yimid habkii qabiilka oo magta iyo xeerka qabiilka un la wadaagayo. ilaahay subxaanahu watacaala isagoo ka hadlaya qabiilkana waxa uu yidhi: yaa ayuha nnaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu inna akramakum cinda Allahi atqaakum inna Allaha caliimun khabiir. qabiil kalena lagu yasayo, laguna caayo oo lagu fogaynayo. marka qabyaaladda la ogayo waa marka la rabo in qolo kale la dulmiyo, laguna hamiyo jiritaanka qabiilka aad tahay oo qudha, lagana diriro jiritaanka bulshada inteeda kale. qofku ma laha mabdi uu isagu rumaysan yahay inay sax tahay iyo nidaam bulsho oo kale midna, ee qabiilkiisa wixii ka soo fula ayuunbaa sax u arkaa, waxa ummadda kalena qalad. dhibaatooyinka ay arrintaasi abuurto waa dhibaatooyin aad u waaweyn, waxaana ka mid ah arrimaha soo socda. 1. bulshada oo noqota ummad dulmi iyo darxumo ku noolaata weligeed. jaahilnimada oo noqota mid lagu faano. xaqa iyo cadaaladda oo noqda in daciifnimo loo arko. bulshada oo aan weligood is aaminin, shakina kala qabta mar kasta. danta guud iyo dowladnimada oon weligeed si daacada loogu heshiin. qof kastaana diido ciddii madax loo doorto haddii aanu qabiilkiisa ahayn, kuna diido qabiilkiisa awgeed, iyadoo laga yaabo kariirkooda ee uu jagada la rabo inuu yahay mid aan xilka loo dhiibayo u qalmin. marka ay doorasho noqoto in qofku dantiisa ilaawo oo uu ka firo dan qof kale oon waxba ka qusayn, doorashadana qof qabiila ku doorto, halkaasna dantiisa iyo xornimadiisa ku waayo. hogaamiyaha dalka loo doortay iyo mas-uuliyiinta kaleba inay waxay doonaan oo xunaan ah sameeyaan, cidna ka biqi waayaan, ilaa waa ummad qabyaaladii jebisay oo awooddii iyo sharaftiiba ka qaaday. haddaba aanu nimaadna maxaa sababay qabyaaladda? jawaabtu uma fududa sida ay su-aashu u muuqato, ee bal aynu isku dayno inaan si caqligal ah uga jawaabno. aynu u kala qaadno jawaabta 2 qaybood. mar waxaa sababi jiray waayadii hore, iyo maxaa sababa xilligan aynu joogno. waxyaalaha ugu badan ee sababi jiray xilliyadii hore waxaa ka mid ah xaaladda juquraafiyadeed ee ay Soomaalidu ku nooshahay. Soomaalidu juquraafi ahaan meesha ay ku nooshahay, culimada juquraafigu waxay raaciyaan lama degaan u eke, waxaana jirta in Soomaalidu ku tiirsanayd 4 xilli ee sanadka ee gu, xagaa, dayr iyo jiilaal, taasoo ka dhigan in roobka aan la isku halayn karin, sababaysana in meesiyada xoolaha kolba meel loola guuro, la iskuna jiito. xilligaasi meeshii naqu ku dambeeyey. haddaba xilligan aynu joogno waxaa loo sababeeyaa un 2. 1. siyaasi kursi doon ah oo doonaya si uu kursi u gaadho inuu xoqo kaadhka tolnimada iyo ciirsiga. iyo tan labaad oo ah 2 ayaa lagu soo tabiyaa dhalinyaro bilaa camal ah.
badanaa waxaa loo yaqaanaa inay yihiin faafiyayaasha iyo naaxiyayaasha qabyaaladda uu keenay siyaasigu, iyagoo ku kaftamaya qabiilka sidoo kalena buunbuuninaya qabiiladooda. taasna waxay noqotay cudur kale oo faafinaya, sababaysana in qabiilka iyo qabyaaladda la kala saari waayo. waxaynu soo gaadhnay gunaanadkii muuqaalka ee daawadow adeeg ka mas-uula dareennadaada. ma waxaad noqon qabyaaladaysta qudhuna, mise caana madaadshe aan fardhaqajin? dabcan waxaa shaki la'aana in horumarka iyo higsiga aynu rabno keliya aan kaga dhabayn karno goortii aynu iska dhaafno qabiilaynta iyo isxaqdiga. intaas ayaynu ku soo gunaanadaynaa muuqaalkeenna. haddii aad wuxuun ka faa'iiday muuqaalka layg saar, siina sheer gare. haddii aanad weli nagu soo biirinna nagu soo biir oo ka mid noqo bahdeenna.